marka waa sida walaalayaal qofku waxa la doonayaa akhlaaqda wanaagsan in uu isku qurxiyo insha Allah ta'ala Imam Ahmed ibn Hanbal ayaa wuxuu yimi Xaatimul Asam ninkaas ayuu u yimi dadkii sharafta wanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee akhlaaqda wanaagsanaa ee lagu deeyin jiray ayuu ahaa hadhow markuu yimi ayaa wuxuu ku yiri kayfa takhallus min an-nas sidee baa dadka loogu takhalusaa macnaha sidee bay dadku kaaga deey doonaan dhibaatada iyo wareerka ay kugu hayaan sidee bay kaaga deey doonaan ayuu ku leeyahay ilaa goormay ka deynayaan ayuu ku yiri hadhow baa wuxuu yiri an tu'dihim malak hadda doonaysa inay dhibaatada dadku ka daayaan dhor qodob samee lambar 1 ina maalkaaga siiso ayuu ku yiri ina maalkaaga aasiiso wala ta'khudhum min maalihim inaadan maalkooda aadan ka qaadan maalkooda ha faragelin oo ha ka qaadin maalkaaga nasiib ko wa taqdi xuquuqahum ina xuquuqdooda u gudid qof waa xaq ka gashay xaqiisi ولا تستقضي أحدا حقك هكذا البن إنه كوجدو قفنا حقك قفا وحكو سميي مركي وحكو سميي هدهن قفو حقك يسي وحوا يقو سميسي إيه معناها إسكعفي وإسكدع وقفكي مقرنا سوا حقه هويدين وإسكعفي وتحتمل مكرهم وأدل qaado dibkooda dibka ay ku sameeyaan iyo xumaanta ay ku sameeyaan u dul qaado ayuu ku yiri wala tukrihu ala shay waxana ku khasbi waxa dhibin macnaha marka oo fiirso waxa weeye dadku sidiisaba waxay jecel yihiin waxa dhaho ana sidan aniga laga xaq daran yahay aniga sida leeyahay qofkii dhaha aniga ma garanaysaa saas ha adiga sida hadhowtana iska dhaaf oo noloshaadii iska wado sababta hadda maanta markasta lagu khaldamay maayo horta khaladka marka la sheego qofka la dhaho qofka waa lagu khaldamaya hamoodii inay xil kasta wataay fi kulli saaca day and night hamoodii inay tahay waxa laga yaabaa qofkii ma garanaysaa inuu bishii hal mar kaliya ku khaldamo saddexdii bilood ina laba mar kaliya ama hal mar aad aragtid qof ku khaldama in lagu khaldamo ma garanaysaa aad iyo aad ayay u yartahay marka inta yar ee adduunyada ku nooshahay oo laga yaabo sanadkii in 10 mar kaliya oo kala fofo lagu khaldamo iska cafi qofka oo waxa tiraahdaa ma garanaysaa cafiif saamax ayaa iga tahay kow wuxuu yiri maalkaagaasi oo maalkooda ha ka qaadan sababtoo maalkooda hada ka qaatay qofkii intuu maalkiisa ka qaatay oo ku xasuunaanaya maanta oo ku xasuunaanaya hebel waxaygu buu haystaa hebel waxa uu iga qaatay ina xuquuqdooda siisid aadan qofkii xaqiisa aadan ka qaadan marka akhlaaqdaas waa akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan weeye in la isbaro weeye maaha qofkii ma garanaysaa inuu haduu khalad ka galo ahwada ka qeelisid waa dhahay waxa ay ku sameysay waxa in ahwada ka qeelisid ma waxay qofkii khalad ka galay iska cafi Umar ibn Khattab ayaa wuxuu leeyahay qofka saaxiibka ama qofka aad la sheekaysanaysid waliga wax maalayacniya ha u soo bandhigin wax maalayacniya oo dhalinyaradeenu maanta waxay ku saabsan tahay dad baa meel iska imanaya waxa la isku jecel yahay hebel oo maalayacni nooga shakee hebel oo wax maalayacni ayaa laga shakeynaya marka waxaas akhlaaq wanaagsan maaha sababta qof markuu ku yimaado saaxiibka waa inuu qadarin iyo karaamo iyo sharaf ku yimaado laakiin haduu ku yimaado wax maalayacni iga shakeysay maalin kasta bay igu qosliyo maalayacni iga shakee ma garanaysaa hadda waxa weeye sharaftaadii baa leedahay sharaftaadii unba hoos u dhacaysa qof laga xaraabaysto ayaa tan واعتزل عدوك waxaad ka fogaataa cadowgaaga akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah buu ku leeyahay cadowgaaga ka fogow hadaa isku meel joogtaana macnaha sidii qof ka fog oo la dhaqan waxa laga yaabaa in isku meel
ku nooshihiin noloshaada ka fogey cadow hadduu yahay dee noloshaadii buu doonaya inuu ciiri geliyo noloshaada ka ilaali oo wax adiga kuu khaas ah ma garanaysaa ha ahaato oo wixii jisadkaaga ha arko noloshaada meelaha ha ka arko oo ma garanaysaa adiga meelaha ha ka arko laakiin cadowgaaga adigu taladaada iyo go'aankaaga iyo noloshaada iyo dookhaaga iyo waxaadaba ka fogeyso waxdir sadiiqaka wuxuu kaloo ku leeyahay waxaad ka digtoonaataa qofka saaxiibka ah saaxiibkaa ka digtoonow min alqowm ila alamiin qofka ammaanada u saaxiibkaa maahaane qofka ammaanada u saaxiibkaa hala saaxiib laakiinse qofka aan amiin ahayn hala saaxiibin walaa amiina ilaa man khashiya allah subxaanahu watacaala cumar ibn khadaab wuxuu leeyahay amiinna ma aha ilaa qofka ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsaday maahaane qofka ilaahay ka cabsada ayaa amiin ah oo markaa ku ilaalinaya hantidaadii ku ilaalinaya sharaftaadii ku ilaalinaya beydkaagii iyo gurigaaga ku ilaalinaya laakiin qof aanan amiin ahayn qof aan ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanayn waxba kuma ilaalinayo hana la saaxiibin alfaajir wuxuu kaloo leeyahay cumar ibn khadaab walaa tusaxib alfaajir faajirka hala saaxiibin fayucallimuka min fujuurihi maxaa yeelay fujurnimadiisa iyo faajirnimadiisa iyo xumaantiisa ayuu wax kaa barayaa oo qofka aaduu la saaxiibtid akhlaaq xun iyo fujurnimo hadduu leeyahay wuu ku barayaa hadduu wanaag leeyahayna wuu ku barayaa qofku hadduu aqoon leeyahay aad la saaxiibtid aqoon baa ka faa'iideysaa haddii uu leeyahay qof akhlaaq badanna akhlaaqdiisa ayaa ka faa'iideysaa haddii qof faajirnimo badan oo jaahila uu yahayna xumaan maahaana wax kale kama faa'iideysid walaa tudallicuhu hana tusin oo ha u soo bandhigin waxa sirtaada ah sirtaada cadowgaaga ka qari macnaha xitaa hadduu ogaado faraha yuula soo gelin oo sirtaadii yuu kula halgin yuuna kula maamulin wastashir fi amrika amarkaagana waxaad